hadduu qofku ilaahay ka baqo oo ilaahay u xasuusto cidhiidhi kastoo aad gashid meel aad ka baxda ilaahay kuu samayn haddaad tidhaahdid waxaan waa xaaraan waad gashay iska laaqo oo waxaad doonta eeg oo waxaad doonta cun oo waxaad doonta samee oo tidhaahd ilaahay baa qafuur raxiima waxaad halis u tahay in markaad dhimanaysana khaatimadu koo xumaato nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi lumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba laba beerood dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaaxoo dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayay uu kabaday xabaddii tufaaxii markuu kabaduu calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynay uu ku yidhi beertan ma adigaa leh maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonayo nin socota ayaan ahaa nusna waan ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cuna ha layga cafiyey buu nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u tegi isaga hadduu kaa cafinay isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuri aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuskaa iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orada iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd bal sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqanya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabuu markaa ka fikiraya saxaab ninkan waan guursan buu yiri ma layga cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ha ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odaygii baa yidhi haddaba mar haddii aqdigii dhacay waa kaa saamaxee aroosna waa tahay inantii waa taqolka ku jirta way ku sugaysaaye orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isagaa markaas la sii hadlayo wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad is hortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeyladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqda gacan ma hayso haddaad kici tiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaayo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xooral cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldanoo qol kale ayaa soo galay
ما يبي كتر الزوجة دادي بان هي إيه كان بي كتر مركز يقول أبها سدو يقول شيء سكة دوان بيقول عليه حنت وحرام بي كتر أبها يا حمن وحو كايري أنا جاي شيء أنا كود جوابي ما أركتو يقول سودك يأرك يما ما أركتو إن أنت إذا معصية ما أركتو ويان ورجع أجانبته ما أركتو ويان ما مقشوا وحي إلهي النبي محمد كعري سيني ما مقشوا ويان ما هذا شو ذكري قرآني هذا لأنك نقول هذا يسمى ويانه هذا الإله كعري سيني كما هذا شو ما قبته لين أجانب أولي قد قعنت هذا كما يقبن ما سعته لقى هيجا مال إلهي وكعرونا يو وما يأذيك سنة لقى هيجا كما يمرين بيوجي صداس وأبهي وجداء السكة لحمود بكتري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتصب ميلو سكفلين أيا أرزاق دي لهي كسيي بيرتي بالسيي قبدي مال قبين كودلين والله دسي أعظم من هذا بالوحى كسي قيمة بدن وكسي وين نكا صالح ولقاها هي قبدا مطيعة هيدي آبهدي هويدي تلدا آبي هو يكو قوريسي إيه تلدا أنا كسعون إيه تلدا لبدا والد أقل كأفرد دينا وحي كعورتين لبدا قفرك اسكو تجين إمام الأعظم بيكون عورتين إمام حنيفة إمام الأعظم إمام نعمان بن ثابت إمام حنيفة إمام كأئمة دوران إمام كأوها إيه إمام مالك نوح بري إيه إمام مالك نو إمام شافعي وحسي بري شافعينا إمام أحمد وحسي بري إمام الأئمة بالي هذا إمام الفقهاء شيخ خاصة قبردي ينكا صالحة مركي اسكت تجين ولقى إلهي علمي سمان تأدون كودن وبوحيي إيه فقيها أها أيا إلهي لبدا قف كسر دحساري ولا ليال لن يري هدان إلهي كعبصونه وان إلهي دبر رمينه وضاعد إلهي كودا دالنه وسيد إلهي نقرب أن يلو سيدان دونينا نولش الدنيا نحن الله نقدر وحق الله قرآن كله كشجع قصة يوسف نسيته يوسف موضع دقوا هاد مودسان لن يروها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف قرآنك وقصة أقوم عن قصة يوسف هل عنوان ما كسوق هذا يوسف عليه السلام ولا له ويحزدين عيل بيكون ردين نما سفر عيل كنتي صومرين بيبي كدا صد استرادين يوسف باكا صوبحي ويقادنوا عزيز مصر بقر كي مصر بيكيبيين فتربى وترعرع في قصر ملك وحا كبر بار النبي يوسف بقر قصر يوسف كل حبر باري قروح ده آدم أولادي سيلاحي وقدرنا كلبد بنبي يوسف لسيه كلبد كي كلنا بني آدم كأدوية ده كنا ولا نبى الله قيبي بلي انتو نبي قروح ليه مركب كلبد كي كلا آيا بني آدم كلا الله قيبي من سانك كجد عدي من عندها كجد عدي من فورمك كجد عدي سوف عنده صلا ما من هذا الكي كجد عدي غرب هذا القروح بدل هذا المعاني دقائق كجد عدي نبى ملبك القروح بدنيه ولكن يوسف عليه السلام حاضر ملين يسا شطر الجمال آدم أولادي سقروح دي إلهي وقدر يبقى الليلي كلبر انت الله سوق عليه النبي يوسف لطول لك كلي مركز ولي بكبر باري بقر قريجيس نكا دلني يرادا إلا يدي قروح دي بني آدم كالله وطلق لي كلبر با كلي اللي قد يقول للسيي ناكتا نكا لك ولنتي أركتا معي سعران يسا اور maxay soranaysa ka sunnah bay soranaysa inuu ku dhaafin ya salaam boqorkii haweenaydiisi boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay Yusuf way diranaysaa lawa qulaamkeyga waa adoonkeedii ayaa ka gato iibsaday socodkiisa la yaabtaa suuradiisa la yaabtaa gacmihiisa la yaabtaa formigiisa la yaabtaa sijeedkiisa la yaabtaa سوجتكيسي لا يابتا وعيتني والله كان إنه كدافن يا سلام يا سلام لكن وحي كورقة من شخص كان شخص عادي معها
وشخصي إلى هاي إلى سنة ويان حل بقرك وكم مغيّهي سعدال أي الباب بذي ونصوحرتي بقرة دائما قبل أجوج أخذ مية رجنا أقل كي إلى ليا نحن أول بعيدا بكتاجن رجع عيدا كنا وعيتري دبادة بناك كي إلى ليا جوريجا قبله وشقينا يخدم كي جينا وعي كتير وفصحتين تضبع الباب علماء قرية تضبع الباب واسكو حكتي سوق فلتي مرجع سيدرف الحنا أصحى يوسف سأدر درني سيكتير يوسف هاي تلاك ما يكتير هذا أقل كأني هذه قوم باكو هدني وقوم مات يقول كان هو شقي سنين لا إله إلا الله بل كورنا ما أريد أساعدك إنك نهيل لهيد مد بالله شيء يوم مقاحيب وفيديو الشيخ أكفرديا مركا قبل ما طريقة مريسة مركا درف الحسدة مركا بصيء يجي مركا شيخ يبقى كويدي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كعمل فل بيقول آيات كعمل فل مركا يقول الشيخ وزيناها للناظرين بيد مقلب يا سلام مركا الشيخ يبقى كويدي والآيات معها ماشي دي ما تجين بكيد آيات وزيناها للناظرين وهالكي والنجوم في السماء واحد دقاها واحد الوجود وحفظناها من كل شيطان الرجيم باكو حكته مركز يا أخي اتق الله هيجي كجلس فما بالك محاذو ملايين بقر حوين يدي سيء قبيي يدا دش يدا إمسان نعمة دلت على كورن وإسلام بقري نندل يراه شاب وأغلى كل حيلتنا كورما مرقابة كل هذا هيت لك يوسف هذا يعني قوم بأغلى كوهر نعيدك لكم هرينه إيكال بكتري قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي سمعي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي وبقرك وحا وجدا بقرك أيو يدي وربك وكي معناها إبرباريانيكا إدل كان نسحدنا إيقادي إنه لا الشيء دم ماركتانا إنتو يبسد إكفالة قاضي ويان إن أنحاس كيسا أن ماركتانا حمان أن أولتقا إلهي بان كم مغان قلي بود إلهي بان كم مغان قلي سدانا ما سمعيو إلا قف ظالما مويانا ظالمنا ما أفلح بود وصلي رسولك ظالم كنا هي ما أفلح يبوكي بس جزاك الله خير ده مركز يكون أقل كقفل الذي سوى كوا وحنا كادل بدي هدانا دي سمينا جرسك واتغانا ما نوم لنا جرسك سماه جرس أيا كل فنايا كم بلال بدل هذا كور أما كم بلال إسكندر لأن عيدا كنتي سوقلان أيان أورانا يعني كاسي إنه يقصبوا الربي هلا يقبطوا هلا يحرق هل كلو جوري ذي نديب دم الله أرك مايو أسباب تيوردن ويكسو حرانتي وبقرة هوين يديسي أقل الباب تيوردن ويسوق فلتو وحرانتي وانن اللي يرى نرفول حنا ووصو حرانتو مركبة وأركيا ووجد وأركيا ولكن برهان إلهي باتمد عز وجل برهان بأنبياء الله سعود برهان وحال إلهي بإلى لنا وعصمة إن قف كدع إلهي بأودي دون والله إلى لنا يا يوسف عليه السلام ما يستاجينه وعودي واد قشة واحد دون تسكسر ما أورن إنك قدرت كيف ما أنت واحد سكوا أخريان إلهي بغفور رحيم إلهي بغفور رحيم وتوبت كاني الباب كور ضيب عليه واستبق الباب بإلهي القرآن كإلهي كل شيء سومه وعلى الباب كأهر يمركو قبتيبه قفل الذي يده هيسته إلهي الباب كأوجب يا مركب إلهي بأوفره حدنا ويابتي كي كانوا كور دي حدنا سامركو قبتيبه بلو أوكلا جبال الباب بفل كنا باكلا جباي حدنا كي سدحات حدنا كي أفراد وعلى كي تضبط مركو قاري إيش صودي سديته الباب كي تضبط مركو صدا أوفر النبي يوسف وحهر جوجا بقركي يعيد كيسي فلما ألفيها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب أليم بيدي بهذا المركب ويتورج
waxay tiri ninka reerkaagii damcay inuu ka faraxumeeyo abaalkiisu maxay bay tahay in lagu sameeyo soo ama in la cadaabo ama soo in jeelka loo taxabo soo maahay waadiga arkay oo qasbay bay ku tiri yuusufna uu hadlo may ayada yeerinaysay buu wadu jeedaa adiguna marka yuusuf lagu yiri sidan ku kala bixi maysaan maxkamadda lagu taagi maxkamadda bay taaga daya jooga aqalka inan yaro ibaaladi walaasheed ay dhasho habar yar ay u ahayd oo marka waliba gurguuranayo xataa hadalka wali aanan keeninba oo xilligii ubadku ay hadlayeen aanan gaarin ayaa la yiri kaaba aqalka joogay yuusuf baa yiri kaana maxkamadda hal keenay buu yiri kaana maxkamadda hal keenay ma yarka boqoradii markii loo sheegay waxay tiri qaado geeya boqorkii wuxuu yiri qaado geeya waxay leeyihiin macnaha yuusuf sina maanta dambigan uga bixi maayo oo buu ku dhex jiraa laakiin waxay ogeyn waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ba ka qarsooniyaka qofka ilaahay ka baqay ilaahay ka cabsada ciriiri kasto la soo darsa meelo ka baxanu yallaba ilaahay yiri kii raba la keenay maxkamadii yuusuf hadal uu hadlay islaantii way hadashay yaa markhaati haystaa yarkanaan haystaa markhaati ilaahay idankiisa ku hadal buu yiri ilmihii yara ee gurguuranaya xataa ee hadalka wali aanan keenin ayaa yiri qamiiska yuusuf hal la baaro oo xagga hore hadduu ka dilacsan yahayna isaga beenaalo iyada run sheegaysay oo uu qasbayo oo iska celinaysay qamiiskiisu xagga dambe hadduu ka dilacsan yahayna iyada qasbayso uu ka farxayo dadna xagga dambe ka xaganaysay waxa la arkay halkee qamiisku inta ka dilacsan dhabarka ka dilacsan war ma maqlaysaa dhalinyarnimadaada ilaahay ku xidhnow cabsida ilaahay baa meel walba galaysa ogow reer wanaagsan cabsida ilaahay baa ku haysa arsaaqad barakada cabsida ilaahay baa ku haysa aqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa ku haysa sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa ku haysa haddii cabsida ilaahay meesha ayna ku jirin waxa aad baranaysaan waxba kama jiraan ogaada injineer waa inuu alla ka cabsi yeeshaa dhakhtar alla ka cabsi waa inuu yeeshaa directorku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa wasiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa madaxweyne alla ka cabsi waa inuu yeeshaa taajirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa faqiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa alla ka cabsi nolosheena hadduu ku jirin waxa aan baranayno waxba kama jiraan ogaada waddanka maraykanka bari annakoo joogno jamaaca ayaa la noo sheegay nin reer Soomaaliya oo masaajidka meel 40 kilometer loo jiro ayuu ku nool yahay ninkii baa la noo geeyay daadiisa waxaan ku qiyaasaynaa 65 jir waa cimri gaalibkii ummaddu ku jira ninkaas jamaacaddii baan uga warranayo una soo raaco jamaacaddii buu yimid markaa jamaacaddii oday nala socday iswaraysteen mid qaraabadiisa isgarteen ilaa Soomaalidu waa iska wada ehel weeyaan hal qoys baan iska wadanahay markaas uu barigii dawladda maxaad ahaan jirto deenan caynkaas oo agaasimo caynkaas oo Russia wax ka soo barto wuxuu oo dakaalay marba hadaad aqoon marka horeba aqoonyahan aad ahayd oo Russia aad wax ka soo baratay oo dalkii markii dawladdu ay jirtay nin madaxa aad ahayd halkan hadda markaa timid maxaad ka shaqaysaa bal noo sheeg waxba kama shaqeeyo halka shaqo la nooma dhiibanaye markii shaqo la noo dhiibi waayo aqal yarna waa la nasiiyay xogaha yar oo cayd oo dadka qaxootiga la siiyo raashinna waa la nasiiyaa dawo yar dhakhtar yar oo kaar yar oo caymiso dhakhtarada aan isku daweynana waa la nasiiyay markaan waxaan qabta aan waayay buu yiri ayaan jaamacad iska galay buu yiri waa imsa jirna hore imsa jir waa 65 jir markaasaan ku nidhi 65 jir haye maxaad barataa bal sheeg ila marka horeba nin aqoon lahayd wuxuu yiri xiriirka dawladaha dariska ka dhaxayaan bartaa buu yiri labada wadan ee dariska ah xiriirka ka dhaxaya ayaa markaas lagu yiri xiriirka adiga iyo Ilaahay niga dhaxaya waa sidee baa lagu yiri
والله مسكيتك أحد باني ما داوي أحد يوم الأحد إلا ودك أحد الله فدي موقتها يوم كان دقة سبت دي أحد مركز على قولي هدانا هذا الشيء اللي حدن جرع إمسا عمرك أكو هذا ما قران كرتا ما قران كرو واحد رجعك قبتها ودك إنتون نبض نقضو هذا أقوانتم بيرصدي إن تكون نقطة صوماهن ها ما لقى يابا إن أتجادا ما لقى يابا الله أعلم بيقول وعلى الحرير كإلهي أذق النجد حيا هذا نواسدي أد بقول لي تابع الحرير كاس وصلاة هاي يجيبها بس كأبوي مرة ثانية قلب مران تكذو مران دايو مران تكذو مران دايو وعلى الحرير كهذا أذق إلهي النجد حيا بروفيسور هذا جامعة نيدق ما يقارنان بودي يكونه وعلى الحداد أذقون الحرير كأنات برنين إلهي أذق النجد حيا بروفيسور هذا جامعة كودقان حرير بني آذنك يا إلهي كده هي هذين نقولين وحبا ما تقانان الزيرو باتين بالبيودي ماذا حقب صدقنك وان هويني غورغي سيبا كو عليني صباح ذي دمو نغو سو كلاhay wuxuu hadalkii aad shalay galabtii itiraadeen waa ka seexan waayay gud xalay toole 10 maalmood baan raacay alaabta ay qaadan jamaacadii soo raacay شوف waxaan ka wadaa xiriirka innaka ilaahay naga dhaxaya haduunan meesha jirin waxaaliya waxaad aqoon leedahay waxaad baranayso iyo waxa dhaqaale aad haysatay iyo waxa darajadii awood aad leedahay waxba kama jiraan ugu waxa ilaahay bini aadanka ku sharfa ee bini aadanka ilaahay ku qiimeeya ee bini aadanka ilaahay ku jeclaada ee bini aadanka kale ay ku jeclaadaan waa ilaahay cabsidiisa iyo dabiicada wanaagsan والله النبي محمد مركي لا ويديه لا يري عملك ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu taqwa Allah wa husnul khuluq ba nabigu yiri عملك ugu badan ee dadku jannada galideeda ay ku mutaystaan waa Allah ka cabsiga iyo dabiicada wanaagsan عملك ugu badan ee dadka ugu badan naarta ay ku galaan nabigu yiri waa carabka iyo awrada rasuulku yiri ikhwani wala layaal dhallinyaratihiin awlaadaydii baad ladaatihiin وقت في عنا واضح يسرتان وحبرشدنا كود دالع لكن دينتنا كود دالع عمل كود دقن كيغا دينتنا برشدنا كود دالع ادو ماد علم المادي دغنايا علم الشرعي كان برو ادو علم المادي دغنايا قران كإلهينا حفظ ولا بعلم المادي ما انت dadku ay dhiganayaan waxa uu dadka ka dhaadhicinaya wax walba waa naatiir wax walba وهذا فاهم سامنو مالين وحول بوا ناترال طبيعي حنون كان يمك ادون كيميدي با لغونا وا طبيعي دوفان با يميد وا طبيعي دول با غريري وا طبيعي ساسا كورنيا قالدو لكن طبيعي ماها قرانك waxa uu leeyahay wax طبيعي ma jire الله خالق كل شيء والبا يا ابوري الهي با ابوري وعلمك المادي ما انت ددكينو اي dhiganayaan meelaha quraanka uu ku khilaafsan yahay ba kama tahay cinwaankaas aan soo qaadanaya laakiin barashadiisa ma inkareen iska barta laakiin ha yaqiinsanaan kalsoonidaadu ilaahay ahaad malik bin dinar abu abdullah ayaa habeenada kamida waxa lagu yiri manam baa lagu yiri manam kaco masaajidka inaan dhalinyaro ku dhex jiro 3 maalmood cunto aanan cunine qaado cuntada u geebaa lagu yiri waa manam uu kacay marka sheekhi kolkii witridii tukaday cunto soo diyaariyay masjidkii buu yimiday wuxuu yimiday yaro shaaba oo qaa'im bil-leyl habeenkii sida u taagan oo quraanka ilaahay akhrisanaya markaas uu keenay cuntadii markay wada cunteeyeen ayuu ku yiri aqalkaygu ma fogo laabkan markaad ka soo laabto laabka kale ka wayaan igu kaalay buu markaad cunto u baahato yarkii yara uu xanaaqay sheekh uu ka yiri hore ma diin taqaanay buu may anu maan ku aqaanay maya anu intaan ku imid baahideeda ma ku sheegtay maya xalay adiga oo jiifa kii amarka kugu siiyay inaad kacdood ii soo adeegto cunto aad ii keento ka bariyadiisa intoon dhaaf adiga maan ku imaada buu ka yiri anu meel baan aqaana weeyaan meesha wax caalamka meesha laga maamulo ayaan cilaaqo la leeyahay weeyaan adi baahideyda ku imani maayo kuna sheegani maayo baahideyda ilaahay baan u sheegtaa buu ka ilaahay waa kee
وكحالي أذو ورقة قبن سقدا دح أمرك كوسية إنها كعضو أذيك عنتدا كأم بامبريا عد كلام بريا بودانيكو هرمر كواكاس دلني يراد إني هرمر تمدون إنسان إنتي ما أنت دلني يراد إن ولا يكون حرام تاعي هرمر واتاس فوحن نقول نفت إذا أنا نقول نصلحين يا إني كان نقول نصلحين يا إلهي كعب صنع